kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qaayaha lahow waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aad inaga barateen ee loo oran jiray barnaamijka livekaas maalmaha sabtida aan barnaamijkeena aan idiin soo gudbinay Sama TV haddaynu nahay waxyaabo badan baad ku maqasheen laafiyadii hore waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa hadduu alla idmo barnaamij cusub oo waxaa marti inoogu ah qoraa Soomaaliyeed oo la Maxamed Ismaaciil Maxamed ereyada ama buug oo qor waxaa kamid ah himiladaada hano nina maalkiisa maankiisa masalugo waxaan runtii aad iyo aad u fiirin karnaa qoraalada inta badan ay qoraan Soomaalidu waxay caado u lahayn inay ka hadlaan siyaasad inay ka hadlaan mataqaanaa suugaan laakiin buuggan sidaan hadda ku arkay wuxuu ka kooban yahay waxyaabo ka duwan buugaagtii hore aan arki jirnay buuggan wuxuu leeyahay waxyaabo ka duwan buugaagta kale ee Soomaalidu qorto Soomaalidu bariyahan waxay qortaa maqaalo iyo buugaag badan oo af Soomaali ku qoran oo ku saabsan sheekooyin ama faalo siyaasadeed kuwaas oo nuxur iyo hanaanba aan qofka naftiisa waxba aan ku ridin marka Maxamed waa maanta marti inoo ah waxaan jeclahay inuu bal naga qabtiro buuggan iyo siyaabuhu soo saaray iyo waxa ku kalifay Maxamed marka hore Sama TV ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وما هتسنتهي وعدوه وأنا كفر حسنا إن أنا كسوق قاتو برنامج كان إنه كجهد لأنه بوجه ملذ هذا حرام. أنا محمد الله ما سبوجن أو هرتي هذا يالو وحالي هذا إن ملذ هذا حنو ننا من كيس مسلوجو وحنا كرك قرن كوي طبعا قلب أول مهورانا حنا شذا ملذ أودن مركا دتكنا داون هذه جو قاضي لجيو سيدة مركا هربو أن بوجن سكول كنتي فكر كان سيدكو مسكح هذا وسوق شيء. وما سنتهي بوجن هملة هذا حنا وحن بلعبي قريتان كيسة لبادي كوني الشنتي فكر كاسونا هرتا تاريخ هان أنا وهذا لبعتن كسانو إن دافتر هل من الصور أنا ها إلا يدور طبعا سنة لكن لبعتن كسانو إن دافتي إن كستو لبعتن كبدن أمريكا كجوجا وحنكوها ولنا كردينتا تيادا دتك gaar ahaana waxbarashada oo Soomaaliya aan ka qayb qaato wax badan tagay waxa muuqatay in tayada dadka Soomaaliyeed ay aad u liidato waxa marka fikradu ahayd sidee tayada qofka Soomaaliyeed loo soo qaadi karaa way jiraan aqoon fara badan buugaag fara badan oo af Ingiriisi iyo Carabi iyo afaf kale ku qoran laakiin ma ay jirto intaan ogahay buugaag af Soomaali ku qoran oo qofka Soomaaliga ah u sheegaysa sidii uu naftiisa u horumarin lahaa himiladaada hano macnaheedu waxa weeye erayga himilo Soomaalidu waxay ku u wada taqaan meel kasta ay joogaan waxa qofku ibn aadamka ay u jecel yahay laabtiisa ku jira ku soo noqnoqda oo uu rabo inuu gaaro inta uu nool yahay marka qoraada sababta igu keentay waxay ahayd tayada qofka Soomaaliyeed iyo aqoonta loo baahan yahay in la gudbiyo haddaan tusaale ku soo qaado dhaqankeena waxa ku jiray maahmaah ah lax walba shilalka isdhigtaa lagu qalaa maahmaahdaas kaliya qofku hadduu fahmo wuxuu ka badbaadayaa inuu qof kale ku eedayo markii uu wax qabsan waayo isagu sababtoo ah wuxuu garanayaa inuu isagu meesha isdhigay hase yeeshee waxa moodaa dadkeena inuu ka dhacsan yahay oo qof walba uu qof kale eedeynaayo ama wax ka sugaayo sidaa darteed ayaa buuggan u noqonayaa mid u gudbinaya qofka inuu himiladiisa yeesho horta garto himilo qof walba waa leeyahay laakiin dad baan garan markuu garto ka bacdi sidoo u hanan lahaa qodobadii uu raaci lahaa qof kastaba marka uu bilaabo waxa uu jecel yahay inuu ku tiigsado talaabo qaado waxa ka hor imaanaya caqabado sidoo caqabadaha uga adkaan lahaa okay maxamed waa soo noqonaynaa waxaan idinka ilaa daawadayaashana qiimaha qayaalow telefonka aad nagala soo xiriiraysan waa 612-746-6553 fadlan telefonkaasi intaadan soo wicin waxa waa inaad marka hore barnaamijka dhageysataa oo barnaamijka inaad dhageysataa barnaamijka intaad dhageysan barnaamijka inaad dhageysataa barnaamijka markaad dhageysatidna kadib aadna soo wacdaa waxaan filayaa TV-ga ayaad ka arki doontaa muraayadiisa telefonka kulleyba live-ka naga soo wacaysaan intaadan soo wicin ama farsamayaqaanka soo wacan bilis barnaamijka ogow Maxamed himilo waad sharaxday hanada maxaa weeye hano waxa weeye gaar ama hel af Soomaaliga marka nuxurka oo dhan weedha himiladaada hano waxa weeye
himilada aad leedahay qof ahaan gaar marka waxa ay xambaarsan tahay laba wax himiladu ibni aadamka oo dhan himilo waa leeyihiin qofku meel kastuu joogo iyo da' kastuu yahay markaan tusaale ku siiyo waxyaabaha dadku waxbay kugu kordhiyaan dad badan baan u bandhigay oo buuggan akhriyay oo comments ama faallooyin kasoo bixiyey gabar dhalinyaro ah oo la yirahdo Farxiye Cabsiye oo film maker ah oo sheekooyinka iyo documentaries subisa waxa ay tiri himiladu way dhuumataa ma dhimato ayaa hadalladeedii ku jiray marka qof walba himilo waa leeyahay laakiin himiladaas qofku hadduusan isagu meesha ka qaadin oo boorka ka jafin oo higsashadu maxay tahay isku dayin inuu gaaro marka hanashadu waxa weeye waxa ka xiga shaqo marka taa way macnaheedu himashada marka buugga marka inta uu kala baxaa marka qodobbaa u kala suubiseen qofka horumarku gaarayo ma qaybaad u kala suubiseen qaybo hadda kor ma ugu sheegi kartaa inay dadku si ay u fahmaan una arkaan buuggiin u gataan baragrafyo miyuu leeyahay kala duwan oo marba qayb ka hadlaya nolosha xaggeeda ka hadlaya mise waa buug sida sheekooyinka u taxano dadku ka xiisa dhacayno marba markuu sii akhriyo noocee way qoraalka buuggan isugu salaysan yahay buuggan marka ugu horeeya hordhac baan ka bixinayaa oo qofku lagama maarmaan weeyo inuu hordhaca garto sababtoo ah waxa way inta kale ee buugga wuxuu ka heli lahaa ayuu u sheegayaa qodobbuuna ku salaysan yahay midalan ba qofku marka ugu horeeya himiladiisa intuusan hanan waa inuu horta gartaa sideeba u garan karaa waxyaaba aqoon ah oo ku dhiirigelinaysa sidii uu u heli lahaa aqoonta waxa uu jecel yahay isagu ba ku yaala markuu himiladiisa garto waxa ugu horeysa qodobka kaleeto uu noqonayaa oo buugga waxa ku jira weer ah gabay Soomaaliyeed aan ka soo xigtay oo ah tala laga dilma shay kala laga dawoobaye qofku fikirkiisa iyo tashigiisa inuu saxo sababtoo ah uusan waqtigiisa waxaan macno lahayn geliyo midalan ba qodobka cutubka isaga ah waxa ku jira oo sheeko hadda kor ano Mareykanka ka tagay oo u haysta rag inaan ugu qiimo badnahay ugu sareeyo sagaashameeyada horaanteeda iskuulle iyo dhisidiisa u tagay ayaa dadkii tuulada aan tagay igu soo shamuumeen dad badan baa igu soo xoomay waa lay waraystay maanta oo dhan baan waxaan ka sheekeeyay aabe ka waran aabe qaxooti buu noqday Soomaaliya xamar burbur baa ka dhacay waa caawinay hebel ka waran hebel qaxooti buu noqday lacag baan u diray hebel ka waran hebel qaxooti weeyay waxbaan waa caawinay anoo muujinaya inaan ahay nin isugu joogto islaan dadka ka tirsanayd ee meesha fadhiday ayaa waxay tiri bal adigu dadkii baa nooga warantay adigu noo waran markaasaan idhi maxaan kaaga warramaa markaas sidii dad iyo dunya maxaa haysaa waa marka waa fahmay meesha u socoto waxaan idhi anigu waa fiicnahay dadkii waa caawinay waa shaqeeyay waa kan ruuxay tiri niyow marna kaama maqal xaas caruur xoolo iyo wax kale aad qabsatay waxaan ugu jawaabo idhi anigu dadkina waa caawinay waana ladnahay marka hadal bay igu tiri yaani run ahaantii qofku hadduu markiisa hore tashigiisa uu sax yahay uu ka badbaadi karo waxay tiri maxaa dadka kale qaxooti ugu sheegaysa adaaba qaxooti ah marka xigmadu waxa weeye qofku haddii taladu ay dhaafto 20 jir marka uu yahay 30 jir marka uu yahay taladii ku habooneed inuu qaato ama 40 jir marka uu yahay hadduu 10 sano kadib qaato nuxurka ay waagi hore yeelan lahayd ma yeelanayso falkaas uu go'aanka ka qaatay qof walba oo noolna tan maanta la gudboon hadduu qaadan waayo waa dhaawac ku yaal oo hadhow uu dhutinaya marka tusaale marka ka soo qaado waqtiga muhiimadiisa dadku say rabaan inay uga faa'iideystaan marka kaasi waa cutub midalan ba cutubkaas markuu qofku ka gudbo wuxuu baranayaa cutubka kaleeto ee ah sidoo fulinimada uga adkaan lahaa qofku mar allaaliyo dadku nin walba uu jecel yahay himiladiisa inuu higsado laakiin qofku markuu talaabo qaado waxa ka hor imaanaya caqabado fara badan cabsida aan ugu horeysa oo muxuu ka cabsanayaa wuxuusan hore u suubin jirin samaynteedu ka cabsanaya marka waxa la rabaa qofku inuu ka adkaado run ahaantii marka buugu ka caawinaya qofku inuu fiiriyo yiraahdo ruuxa ka cabsanaysa maxay waxa rabtisa maxay ahaayeen ka bacdi qodoba isdaba jooga yool samaysashada sidoo qofku u samaysan lahaa meeshii uu rabay inuu gaaro bartilmaameedkiisa waqti walba saacad walba inuu qofku xirfad gaar yeesho waayo
himilada aad leedahay ma gaaraysid ilaa aad leedahay xirfadda looga baahan yahay in lagu gaaro marka qodobadaas oo dhan ayuu ka kooban waxa kale oo kamid ah go'aan qaadashada dadku waxaad moodaa go'aan qaadashadu waa wax aad looga baqo waxa ku jirta sheeko aan soo qaatay taariikhiyan Tariq ibn Ziyad wad garanaysaa haddii uu ka talaabay Africa meeshan hadda Morocco aynu raacno oo uu talaabay Indonesia wadankii la oran jiray xoogaa ciidan uu watay waxaan maleeyaa 2000 ilaa 3000 cadawgii dalka ay tageen markay iska hor yimaadeen ayuu wuxuu arkay ciidankiisii oo baqaaya waxay u noqotay inay cararaan ama balalaayo iyagoo carar ku jira iyo in ciidankiisa uu go'aan qaato si ay u cararin doonihii ayuu ka gubay ay ku noqon lahaayeen oo shidaalkii iyo raashinkii iyo biyihii iyo xalba u siday hadal buu markii ku yiri wuxuu yiri badina waa idinka damaysaa cadowgana waa idinka horeeyaysaa xagee aadaysaan talaabadaasi waxay keentay askartii inay go'aansato in guul iyo geeri wax ka dhaxeeya inay jirin taas ayaa 711 qarniga miilaadiyada amarku ahaa ayay ka guuleysteen nimankii ay ka soo horjeedeen hadda taariikhda marka waxa way xigmadu hadaa rabto inaad himiladaada hanato waa inaad kaabadaha wixii hore aad u sameyn jirtay aad jartaa si aadan dib u noqosho ugu muhana hore u socoto waxa soo dhan buu qofku buu ka caawinaya ku jirta himiladani qaybahan listeningka qofka maadaama uu qofkii ama education markuu bilaabayo kulli markuu guursanayo markuu rabo inuu jaamacad galo kuwaas oo dhan way ku jirtaa Soomaaliya inuu suubiyo waxa soo dhan waa ku jiraan sheekooyin run ah oo qofku uu xiriir la yeelan kara kamid ah waxa jirta sheeko run ah oo buug ku qoran inan aan magaciisa warsame waayo waxaan diidayaa buugga qofka in la garto lama rabo warsame la yiraahdo ayaa anigu marka taariikhiyan waxbarashadan ka qayb qaadan jiray waxana ahaa la taliya ayaan dad waaweyn iyo arday doonaysa inay mustaqbalkooda dhisaan baan oo ahaa inaan warsame la yiraahdo oo shaqeeya 2 sano dugsiga sare soo mooga ayaa maalin ila tashaday wuxuu yiri inuu waxbarashadan jecelahay waana ku fiicnahay laakiin shaqada kama maarmo waxaan rabaa inaan shaqeeyo waana dhalinyaro ah oo rabaa apartment kaliya inuu degan yahay oo xogaadiisa iyo baawrkiisa ka wadwato haddaan ninkii la faguray aan isneeri aan weydiiyay adiga maxaa jeceshahay inaad gaarto wuxuu yiri waxaan rabaa inaan jaamacad ka baxo oo dhameeyo haddii arrinkii iska arko waxay noqotay shaqada tan aad hadda waqtiga geliso waa inaad joojisaa ama dhintaa si aad waqti ugu hesho jaamacadii wuu bilaabay 2 sano iyo barkadib baanu is aragnay warsame meel bakalaan ku kulanay wuxuu yiri 2 sanaan xiray haddana waan shaqeeyaa oo waan joojiyay jaamacadii oo maxaa jaamacadda u joojisay soo ma ahayn hamigaagu inaad jaamacadda dhamayso wixii mudnaanta koowaad ku lahaa soo iyada ma ahayn wuxuu yiri niyow may waxaan rabaa inaan baabuur gato oo miyaadan adoo aan baabuur lahayn jaamacadda dhamayn karin sir waa dhamayn karaa haddaba tii muhiimka ku ahayd ee aad higsanaysay oo rabtay inaad dhamayso maxaa ka leexiyay uu garawsaday jaamacaddu ku noqday uu dhamaystay xigmadu waxay tahay marka inaga maalin walba ina ku dhacdaa qofku isaga oo samaystay wax uu gaaro raba ayaa waqtigiisa ay ka qaadayaan aan muhiim ahayn marka wuu la xiriiraya qofku xiriir buu la sameeyaa markuu sheekooyinkaas oo kale arko iyo waxyaabahaas waxaana lagu bogaadinayaa qofku wuxuu ku ficilkaaga iyo waxa iswaafajisaa fikirkaaga lagaba maarmaan waayo waxaan rabaa inaan مثلا بنقضو nin qof dhakhtar ah ama qof hodan ah isla mar ahaantaana 6 saac oo cimrigayga ah waxaan u fadhiyayaa مثلا bajaad ama waxaan ciyaarayaa turub si isu waafajinaysa labada arrimood waxa way qofku waa inuu geliyaa waqtigiisa waxa uu go'aansado inuu rabo xigmadahaas ayaa laga helayaa maxamed adoo mahadsan waan sugeynaa dad in soo waqa kulliba buugga sidaan ku arkay wuxuu u qoran yahay si aad iyo aad muhiim ah especially garaacida iyo waxaad u malaysaa qof walba inuu aqrin karo sidee ku weergashaan u malaynay qaabka qoraalkan wanaagsan runtii waqti iyo xoog fara badan baa galay muddaan ka shaqeynay waxaana go'aansanay in buug qofku markuu soo qaado afka uu ku qoran yahay iyo warqadiisa iyo fartaba aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin marka wuxuu u qoran yahay standardka buugaagta wadankan ama heerka laga rabo buugaagta wadankan fiican macnaha
waxay dhahaan tayada fiican ee waraaqaha le ay ku daabacan yihiin. marka waa talo fara badan. dad waxaa jira sideedaba khubaro ku ah book publishingka waxay dhahaan daabacaadda buwaagta iyo waxaas dadkaasaa ka shaqeeyey ilaa iyo haddana waa nidaamka ugu fiican ee book loo sameeyo ama loo soo bandhigo. dadka inta badan waxaan filayaa dhalinta iyo dadka middleka ah iyo dadka seniorka ah ma u siman yahay buuggaani way wada akhrisan karaan sooma? qof kasta oo ibni aadana oo raba meesha uu joogo inuu ka tago oo meel kale gaaro waa lagama maarmaan buuggaan uu yahay. inkastoo dadka qaarkii uu moodo himiladaada hano markay arkaan inay tahay da'yarta oo keliya, dhalinyarada keliya ma aha. qof walbaba heerka marka dhalinyarada maxaa ku cabiraysaa? qofka maalan bil-60 jirka ah 80 jirka dhalinyaro uu yahay. marka qof walba wuu u baahan yahay wuxuu ka helayaa wax naftiisa. midda kaleeto aqoonta buuggan ku qoran runaantii markaan qoraayo uguma talagelin sheeka sidiisii qof intuu akhristo inuu iska dhigo meel hal mar kaga filan tahay ama sidii journaal hal mar ay kaaga filan tahay ma ahan. waa wax maalin walbaba loo baahan yahay qodobka inuu qofku ka faa'iideysto. taleefanka u horeeyaan qabsanaynaa. hallow asalaamu calaykum. calaykum asalaam walaal. walaal su-aashaada iyo walaal. horta hore waa salaamadtii marka hore Sama TV. haye walaal. waa inuu salaamayaa. su-aasheeda ugu horeysa waxa waaye buuggan muxuu tari karaa dhalinyarada Soomaaliyeed see wax uga faa'iidi karaan? magacaa walaal marka hore. magacaygu waa Cabdirasaaq. waxaan ka soo hadlayaa Chicago. Cabdirasaaq aad baa mahadsan. waaye muxuu tari karaa himil ahaan sooma buuggani? maxamed bismillahi raxmaani raxiim. waa mahadsantahay Cabdirasaaq. waxtarka buuggan waxa fiican anigu ninkii qoray baan ahay oo maanta oo dhan waa oran karaa waxbuu ku taraya laakiin haddaynu eegno maalanba dadka aan u bandhigay buuggan wax ka qoray reviewers ba af Englishka lagu yiraahdaa. markaan laba qof soo qaadano tusaale ahaan Dr. Hodan Saciid Ciise oo Professor of Economics waxay ka shitiray buuggan waxaan u arkaa inuu yahay buug aad loogu baahnaa in la qoro waqti ku habboon la soo saaray. Cabdisalaam Shariif Aadam oo ah gudoomiyaha Masjidul Hijra ee Minneapolis waxa uu ka yiri waa buug kooban oo mug weyn akhristuhu wuxuu heli tilmaamo naftiisa wax ka bedela oo u horseeda isku kalsooni go'aan qaadasho iyo yididiilo. waxaan rajayn inuu natiijo fiican gaarsiinayo ruuxa ku camal fala. haddaan mid kaleeto oo quick ah soo qaato Dr. Saciid Faahiye oo la wada yaqaan saan filayo caan dalkeena ku ah oo PhD holder ah waxa uu yiri himiladaada hano waa tuse ku habboon in qofku ku gaaro yoolka uu leeyahay wax kasta ha ahaadee. waa buug qofku naftiisa ku horumarin karo bracket self improvement book. muhiimadda buuggu waa taabagelinta hankaaga. Cabdirasaaq haddaan usoo noqdo horta sideedaba nabi ciise calayhi salaam baa ilaahay awood u siiyey dadka dhintay inuu soo noolayn karo. inagu awood uma lihin gaar ahaan anigu. hase yeeshee qofkii wax ka maqan yihiin oo doonaya wax inuu kororsado oo uu ku gaaro meel buuggani waa buuggiisa. adigoo aad u mahadsan. waxaan filayaa weli leenka laguma jiro hal okay. hallow asalaamu calaykum. taleefon baa soo galay. assalaamu calaykum. wacalaykum salaam walaal. magacaaga iyo su-aasha. walaal magacaygu waa Mustafa. aniga maqlamaysan? waa ku maqlaynaa walaal. Mustafa adiga iyo professorka buugga qoran waa salaamaya. buugga waxaan rabaa inaan ogaado luqadda uu ku qoran yahay iyo meesha laga helo. midda kale Soomaalidu waxa akhriyaa waa yihiin dhageysina ma leeyahay si dadka oo inaga qeyb qaataan soo CD ahaan ama DVD intaasan dhiilaa. waa mahadsantahay Mustafa. Mustafa assalaamu calaykum. waa mahadsantahay soo wicidaada. su-aashii ugu horeysay oo ahayd buuggu ma leeyahay Soomaali miyuu ku qoran yahay? waa mahadsantahay. buuggani horta laba arrimood buu xambaarsan yahay. waa midda ugu horeysa waa Soomaali buu ku qoran yahay. waxaan rabaa inaan daqiiqad ku qaato af Soomaaliga sababtoo ah Soomaalidu waa dad aad u fara badan. haddaad internetyada dadku dhalinyaradan way ka baari karaan. waxaa lagu qiyaasaa oo ay yiraahdaan dadka sheega
16 ilaa 19 milyan oo qof inay yihiin run ahaantiisa dadka waxa la yiraahdaa dhowr iyo 20 milyan weeye dadka Soomaaliyeed oo uu afka hooyo u yahay hase yeeshee ma ay jiraan buugaag aqoonta ku qoran oo gudbiya sidaa darteed ayaa buugan uga qayb qaadanaya u noqonaya buugaagtii ugu horeysay ee ku qoran cilmi qof kasta ee Soomaaliyeed ama ibn aadan uu u baahan yahay adoo mahadsan waxay waa socdo waa noo wadi doontaa Mustafa jawaabtiisii waxaan dhageysanayna telefonkan hallo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاول المقعد يا سؤال مقعي وعيدوس حكسو الله يا وسكراسم مركا وحني وندي لها بوغان سيلو هيركرا بوغان سيلو هيركرا عيدوس اوكي ادوك تي هوري وحريا نينك هورا وحو يري ملهيريا مقال ومصطفى واقر ولا ما يصير marka waxaan ka soo waday af Soomaali buu ku qoran yahay xigmaduna waxa weeye in haddii maanta af Ingiriis aan kaliya lagu qoro inta Soomaalida Ingiriiska ka faa'iideysan kartaa waa tira aad boqolkiiba hal lama dhihi kara xataa saan filayo laakiin af Soomaali buu ku qoran waa qodobka labaad xagee laga heli karaa buugan shalaada furkiisi dhacay meelo badan ayaan insha Allah rajaynaynaa tira kooban baanu markii hore ka daabacnay hadba waxay ku xiran tahay reaction-ka ama dadku siday maaragtay u nool yihiin oo u rabaan inay horumar haddeertaan waxa uu yaalaa oo la dhigayaa post plus waxay ku taalaa 2740 Minnehaha Avenue South ayaa laga heli karaa waxa jira web page la yiraahdo himilo.us web page-ka wali uma nadaamsana in laga gato laakiin waa laga gadan doonaa insha Allah toddobaad gudihiis baan rabnaa inaanu ku dhamaystiro sidii looga gadan kari lahaa hase yeeshee hadda wuxuu yaalaa 2740 Minnehaha Avenue South oo alla yiraahdo post plus ayaa laga heli karaa وما سنتهي وحن قبلنا بالتلفزيون هلو السلام عليكم هلو أولا وعليكم السلام ورحمة الله مقعاقي والسؤال شو ولا مقعي عبد الناصر حسن عبد الناصر أيه بعرف إنه يعني وفرق ودلالات ودلالات بوك إنه وأوري مركب هذيك السماء لدو حقيقة ما لدو حقيقة البوك سوغر بين السماء إن أول فاضي في الآخر marka ma sameeyo si diyaar wax la dhageystay arrimahaasna ma ku soo macnaha haddana sidii kale waxaan rabaa in waqtiga qoraaga uu bilaabo qorista in aydan ogaadayaan rabaa xilli uu bilaabay okay waa laba su'aal midda kale to su'aashii horeeto oo inankii Mustafa inoo weydiinayay waxa weeye hadda audio kuma soo bixin laakiin waan qorsheynaynaa in e-book uu noqdo oo electronically loo gato iyo audio inuu noqdo haddii rabbi idmo hase yeeshee marka ugu horeeya waa la daabacay haddii daabacaadana waa garanaysaa printingka distribution iyo kharaj waa galay marka sidaas oo hadda ku jira taas waa taa midda labaad waxa weeye xilliga la sameeyay ugu soo baxo inuu weydiiyo Cabdinaasir daafurkiisa shalow dhacay anigu si qoritaankiisa su'aashu waxaad baan maranayaa goorma bilaw 2005 baan bilaabay hase yeeshee inta aan gacanta ku hayayo dhan hadba wixii markaas waqtiga la jaan qaadi kara waan ka bedelayay tusaale ahaan cutubka ugu horeeya oo ah garashada himiladaada oo aan ku qoray word uu yiri waxaan filayaa Imam Shaafici worddiisi ahayd gabay baa jiray oo leeyahay qofkii ka baqa inuu buuraha fuulo cimrigiisa oo dhan wuxuu ku noolaadaa booraan macnaha himilada qofkii ka baqa inuu wax tiigsado waligiisoo dhan wuxuu ku noolaanayaa nolol aan macna lahayn oo uu ka qoomamayo ugu dameysta cutubkaas waxaan markii horeeto maalan baa u soo qaatay guulo ay u halgameen dad Soomaaliyeed oo shakhsiyaad laakiin waagi dhaweyto maalan baa Olympic London Olympics ay dhacday Maxamed Faarax oo Faarax loo yaqaano guuli uu ka soo heeyay ayaa maalan ba aan ku bedelay markii dambe sababtoo ah dadku wuxuu haystaa Maxamed Faarax tusaale hadaan u soo qaadano runtii buugan oo dhan xigmadiisa dadku wuxuu haystaa Maxamed Faarax inay habeen ku soo booday maalintaasayna wada aragnay ninka intuu orday la yiri waa world champion gold medal buu qaaday moogtay xaqiiqdiisa interview la yeeshay baa ku yaal يعني waxa uu yiri ilaa iyo 10 sano ayaan maalin walba waxaan ordayay 30 kilometer ya ka badan maalin walba juhdigaas marka xanuunka uu soo maray si uu buurta fiinteeda u fuulo yani marka waxa weeye xigmadu
qofku marka uu garto meesha uu u socdo dadaal baa ku jira dadaalka marka waa inuu gartaa oo muruq iyo maanba xanuuna marka waqtigaasaan bilaabay laakiin hadda ayaa buugan daafurkiisa dhacay maxamed inta telefoonka inoo soo dhacay waxaa tiri buugga wuxuu bilaabay 2005 baan qoridiisa bilaabay haddana waa 2013 marka intaas waa diyaarinaysa intaas waan waday inkastoo dee noloshayda kalena aan waday oo aan loo fariisan midda kale dadku waxaad moodaa horta anigu inkastoo qoraallo kale oo fara badan oo publications iyo waxa aan sameeyay la yiraahdo haddana buug rasmiya oo aan qoro kii koowaad weeye shaqo badan iyo juhdi badan baa gasha hawl yarna ma aha waayo waa talaabooyin marka ugu horeeya waxa weeye fikraddii marka dambe sidii fikraddaas aad u gudbin lahayd marka dambeeto oo aad buuggii sidii loo daabici lahaa daabacaadiisa markaa ka gudubtana sidii dadka loo gaarsiin lahaa oo aan hadda heerka aan ku jirro maxaa u oran karaa marka caqabadaha ugu xun intaad diyaarinaysa buuggan ka hor yimid mid ama laba ma ka soo qaadi kartaa caqabadaha ugu waaweynaa oo buuggan ka hakin lahaa isla mar ministry buugga George ma jirtaa marar badan baad baqaysaa iga raali hada ma hubo maahadu inay ku haboon tahay laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa libaax baa ay taabtay ma dhuusin marka waxa way libaax baa ay taabtay dhinaca ma dhicin war beeno way run ahaantii qoraa ayan ku iman George ka har waxa kan ma uusan jiro waayo waqti iyo xoog iyo xoolo intaba way galaan marka marar badan baa isweydiinaysaa war xoogan iyo xoolahan ma ka soo celin doontaa meesha marmar baa fikradkaaga is oranaysaa laakiin anigu run ahaantii waxaan ku dadaalay sidii hadaayato ragga qaarkiisa ay uga qoreen Soomaalidu badanaaba hadeer waxay wax ka qoraan siyaasadda arrimaha iyo waxa iyo maya kan waxa weeye waa qofka shakhsiga ah iyadoo aan target ka dhiganayno ama bartilmaamsanayno dadka Soomaalida ah dhaqankii Soomaaliyeed uu ku salaysan yahay مثلا بوحة كوجرتا أو كلاته أو ضدكو عاد أنت آخرستي يوصو وعين قبيه سيدت قفكو مركا أو هملادي سجرتو أو هالجمو أو صعدو نبت كهرت معدو سي وسنولي وجهرين قدام ما يسترو سومالي مركا واحد جرا أراح أورنجرت قبيه سيدت واحد جرا جبر بعضنا أما قف بقى واحد بلا بايه قرتو مدوضه أيو كهريا وحي أورنجرين قبيه سيدته صبرته أو قف قبيه إسكسيته واجد دمنا وحي نقطع طبيعة وحي رادان حبت صبرته قفك وبرنا يا وحول بواب بلا بيا نحدو كهتجي مركا وحيابها صورن باكجرة maxaa kale fikra wad ay kula tahay maadaama khabiir ku tahay maxaa kale fikra qofka intuu bilaabo inuu joojiyo maxaa kale fikra ay kula tahay waxyaabo dhowr ah buugana runtii waan ku soo qaaday waxa kamid ah qofku markuu hawl bilaabo oo socodku markuu adkaado uu baqo waxa kamid ah isaga oo indhaha ka qaaday yoolkiisii markii hore wixii himiladiisu ahayd ee uu rabay oo indhaha ka qaaday laakiin hadduu indhaha ku hayo waa adag tahay soo uga haro waa qodob waxa la yiraahdaa hoodadeyn ama waxa af Ingiriis ku yiraahdaa distraction wax ka leexiya Soomaaliga hoodadeyn iyo eray kalena waa jira waa qodobka labaad waxa weeye baqdin bugu ka caawinaya qofku waxa la rabaa wuxuu ka baqayo barorto inuu ogaado maxaa ka baqaysaa hadda soo ma xusuustaan sheekadii cigaal shidaad kurtum buu meel habeen buu waxbuu arkay maluug meel wax ayaal habeen meeshuu fariistay commando sidiis beerbeer buu u seexday goortii waa berigi iftiinkiisi wax lagu kala gartay wuxuu inay kurtun yihiin waa tuu laha kurtunkeero waxaan ku mooday waxaad noqotay waxaan si loo noqon doonaa xigmadu marka waxay tahay waxa aad ka baqayso bal arag cabsidana waxa buriya fal aad ku kacdo sheeko yaro waxa ku jirta run ahaantii yani America dhan laga sheego caani gabar cheerleader ahayd school oo ahayd university ayaa marka cheerleaderka gabadha waa garanaysaa waa habla waa ka tolmoontahay joogiyo jamaalba marka waagi dama wiil gaaban oo garabka ugu dhaca ba xaaskiisa noqotay wiilashii kubadda ciyaari jiray oo caanka ah ayaa waxay yiraahdeen war heblo soo dhacday waxa soo raga jaamacadda joogay maxaa kugu dhacay ruuxii ragga sheegaysa xagee jiray ninka ugu horeeyay ila hadlo ahaa
ها معناها ويولكيس جسنو موجي geesnimo macnaha waxa way wuxuu rabay buu raacay ninkaasi oo tagay laakiin iyagu way ka baqay go'aan buu soo sheegay go'aan waa important waa halo salaamu calaykum عليكم السلام ولد ومقعي وحوى جامعة وحن دقنا كولورادو مركا وحن ويدين لها أبوانكا فوق مليه هي ويب سايت ها أبوان ما هرت قراده جامعة قراءة ها وايه ها ولا الجامعة وأداد ما هتصنتهي وليه ويب سايت كيسا وحلا يرادا himilo.us وإريجا himilo وفي صوماليا .us وويب بيج كان دونه إنه إن شاء الله وأنا هدايا لها وحتى وين تيجي كرتا حوجا إنفورميشن أو كف بدن برالجيا بيانات كهش أنت أنك بحشي حسي شيء ولي لقى مقدن كره أو سيستم كيبوسن كوجير إن شاء الله وأنا سمعيننا ها جامعة أوكي مركا وحاضر لهذا مركا cabsidaasi baan joognay midda saddexaad aad oran kali qofka hakinayo ka hakinayo inuu himilada gaaro dhowr qodob baa jira run ahaantii ku qoran waxyaabaha qofku marka uu doonayo waxa kale oo jira waxa uu ka cabsanayo inuu ogaado waxay ahayd in uu yoolkiisa uusan indhaha ka qaadin waxyaabahaas oo dhan marka waxa ku imaanaya qofku markuu ogaado runtii wuxuu ka cabsanayo wuxuu bilaabayaa inuu ku fikiro cabsida maxaa kaga adkaan kartaa midalan ba waxa rabtaa inaad dhakhtar noqoto waad ka baqaysaa marka hore laakiin waxa ka xiga markaad ogaato oo ay yihiin kow inaad shuruudaha laga rabo inaad jaamacadda dhakhtarnimada aad buuxiso hadday tahay inaad marka hore bachelor qaadato hadday tahay maadooyin u baahan tahay marka qodobo dhowr baa ku yaala oo qofka ku caawinaya sidii uu uga adkaan lahaa cabsida ka hor istaagaysa intaan gaarayna bal waxaan rajaynaynaa in gabagabada marka buugani oo himiladaada hano ah waan sheegtay caqabadihii ka hor yimid marka caqabadihii aad soo dhaafto markii kugu horeysa hadda marka waxaa hadda dhiman inay dadkii gaaraan tusaale ahaan qof baa iibsaday oo maxaa ugu muhiimsan oo buugani aad oran kartaa saar awoodda oo ku jirto baragraafka ugu muhiimsan oo aad oran kartaa leeyahay baragraafkaas boo aad wixii ilaan qofka markuu wax qoraagu yahay meel buu maskaxdiisa geeyaa qaybtee baad u oran kartaa buugga taladiisana way ku wada jiraa buuggan anigu waxaan ku soo qaaday 11 qodob waana isku dayay inaan soo ururiyo xigmadda yani waa waxaan anigu run ahaantii is iri horta aqoonta buuggan ku qoran maaha aqoon qof iska leeyahay waa xigmadda ibn aadamku iska soo gaaray badankeed inkastoo aan ku saleeyay dhaqankii Soomaaliga iyo mahmaayeeyo waxa weeye qofku qodobka ugu horeeya oo ah garashada himiladaada qofku hadduusan himiladiisa marka horeba garan muxuuba tallaabo u qaadi karaa oo kaleba ma jirto waa inuu marka ugu horeeya gartaa wuxuu rabo adduunka muxuu ka rabaa qof aan himilo lahayn ma jirto wax walba laabtiisa ay ku jiraan hadaa ay tawaataan afka ku dhuftay farxiyo midalan ba oo kale cabsiye oo akhriday buugan waxyaabaha ay ka sheegtay hadalku wuxuu ahaa waxay tiri iyadu ra'yigeeda walow aan ka sii jeclaan lahaa inaan akhriyo markaan 20 jirka ahaa haddana siduu buuggu tilmaamayo hanka iyo himiladu ma dhintaan ee way dhuuntaan himiladaada hana waa buug ay ku dhan tahay talo dhammaanteed oo ku tusaya in higsiga himiladaadu ay ka xigto oo keliya waxoogaa halgan ahi ku wacana inuu akhristo shakhsi kasta oo ay hididiilo ku hayso inuu gaaro himiladiisa marka waa himilo way marka hore waa inuu qofku wax rabaa maxamed marka waxaan filayaa hadda gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay ugu dambeyn finalka words dadkan ku dhageysanaya aad kala dardaarmada buuggaani iyo fikradiisii noo soo sheeg waa mahadsan tahay ugu dambaysta waxaan anigu oranayaa buuggan laba arrimood oo xambaarsan yahay oo ah af Soomaaliga uu ku qoran yahay oo qof walba oo Soomaaliya la rabo inuu ka faa'iideysto iyo fidinta af Soomaaliga macnaha taabagelinta afkeena in lagu qoro cilmiga qodobka labaad waxa weeye qofku wuxuu ka helayaa adigu buuggaasi ku dhantahay saan malaynayo qofka ibn aadamka ah hadduu qof naftu ku jirto uu yahay oo rabo inuu meel gaaro
waxa jirto xaqiiqdu ay tahay qofkii aan himiladiisa garan xigsanna sidii hawtulhamag ayuu cimrigiisa oo dhan u noolaanaya aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan filayaa Sama TV maxamed aad iyo aad baa u mahadsan tahay booqashada noogu timid dadkeena daawanaya waxaan leeyahay buugga la yiraahdo himiladaada hano oo uu maxamed qoraaga maxamed inoo qoray waxaan rajeynayaa inuu meeshii aad idinkaga timaad ka heli doontaan wax badan aad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkii koobnaa ee aan ku wareysanayna qoraaga maxamed inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan hadda leeyahay cabdikariin iyo maxamed cali oo inoo jooga inay bal inoo saaraan wixii inoogu talagaleen maxamed aad baa u mahadsan tahay thank you for having me